goormeed soo gashay waddanka Turkiga Soomaalida dhan ana u gargaaraa ilaa guri isbitaalka wax walba dhan ana sameey marka goormeed timid Turkiga imisa sana joogtaa abadukay marka saaxib Turkiga dhibaato ma kala kulantay inta ku nooleed dadka afkaadin waxa kala kulantay mesela jirdil ma ugu geeso ligaaga wala leeyay sama kala soo qofa galin doctor isbitaalka bada ka soo kaligele aba kuusi wax matreesidin dhaafnaa marka saaxib hadda hamigaaga muxuu yahay Turkiga inaad ka tagtid ma rabtaa waa gartay marka goor imsa jeer baa isku dayday inaad Turkiga ka tagtid ama badda aad martid ama jafta aad martid aan badda maxay la tahay dadka dhan ingiliya waa hadda hoteeladan ay degan yihiin dadka kana ugu weyn marka hoteelka meeqa lagu degaa saaxo maalintii imsa lagu degaa 30 lira ay marka aniga hadda waxaan diyaar u ahay codkaaga inaan mujtamaca aan gaarsiiyo kuwaas wax fahmayn lacag ay leeyihiin anaga lacag ma lihin faqiirana safaarada Soomaaliya u fadhido Turkiga hana nabad geliso dhibaato aad weyn bay nagu haysaa wax nooma qabato kaliya waxay lacag ku qaadataa inay anaga na kaakiyosto ay safaaradaha timaado si lacag u hesho ay tiraahdo anaga qoomiyadaha kale in la tarxiil way diideen dadkooda xiran dadkayga haday bixin lama soo celin karo anaga dadkeeni hadii aan xataa ka dhuumanay way inoo jaaj safaarada Soomaaliya noo jaajusaysa hana nabad geliso safaarada midda kaliya ku qasarno waayada maanta waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Izmir halkan waxa ila joogo gudoomiyaha dhalinyarada ee Izmir ku soo dhaw saaxib sare magacaaga ku bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Qadar Maxamed Axmed wallahi waa gudoomiyaha dhalinyarada marka meeshan waxa la bismaanay gaar ahaan 15 dhahan dhalinyarta meeshan waa dhalinyarta meesha iskugu imaado aan ka wada sheekeysano akhbaaraha sidii doomanka galo kaleeto wixii baxaayo wixii soo galay wixii la soo daayay marka waxa leenahay horta mid koowaad caqabado badan meeshan ka jiraan marka Soomaalida ahaan marka dhalinyarta caqabado badan meesha ku haysto xagga Turkiga ahayd marka waxa waaye waxa dhigi lahaa horta dawladda Soomaaliya dawladda Turkiga horta markii hore waxay ugu keeneen inay walaalihi yihiin laakiin maanta waxay barnaamijka walaalnimada weysiin kasi bixisa maleena meeshan dhibaatooyin badan Soomaaliya halkaas kaga haystaan diin laga baxsado ay tagayaan hoteeladii meelihii la degnaa waxyaalihii faraha badnaa meeshan ku ahi jirna Soomaalida iyo Turkiga walaaltinimada meesha ka jirtay inay si dhamaayso oo waxba aysan noo aalina aaminsanahay marka safaarada Soomaaliya iyo safaarada waddanka Turkiga marka waa caqabadooyin badan aan ku qabnaa inay dadka Soomaalida soo tarxiisho oo iska narodoonka iska ahaa oo waddamadooda iska aadayeen marka qof walba waa kasbaad yarkaan ama weesha ana ka shaqeeyo dhahayo Soomaaliga safaarada ka shaqeeyo oo dhahay lacag uu qaataa dawladii ayaga ala qof $2500 ku dhawaad ee ala qof ku qaataan marka safaarada waxaan ka codsanaynaa inay waxyaalaha ay nagu hayaan naga dhaafaan ee naga joojiyaan wax walba oo caqabad ah dib aan ugu keenaya aniga dad nolol raysanahay wadankii ogtiin waa qof marka saaxib caqabadaha ugu waaweyn aad
aad kala kulanteen waddanka Turkiga ama magaaladan Izmir maxay tahay cunsurinimo haday tahay macnaha hal in labo ma soo koobi kartaa wallahi cunsurinimo badan way jiraan neeho waxba tigaysa meel dukaan oo kale tan wax ka iibstaa rabtaa sheygan oo kale marka soo qabsatid adi joyskaagu iyo aqaadatid kan uu yahay ma ku siinayaan midka asiga jeebkiisa uu ka rabo inuu ku siibiso isku dayaa cunsurinimadaas oo kale ta koow ah waxyaalaha kale ninka adeega aad doonayso oo kale qof adoo kale ka soo horeyso waxa waaye leena ku jirta oo kale qof Turkiga ma hayo adiga leen ku jira laga saaraya qof Turkiga la soo marsiinayo cunsurinimo waxa amal way jirtaa waxyaalaha fara badan marka Turkiga waxa waa qofka marka aad fadhiso meel sheeko ku sheekaysanaysiin inuu aamus ku dhaho kale ku aamusiyo waxyaalaha fara badan ku qabnaa marka dhibaato ah kuwaas waxyaalaha kamid ah oo cunsurinimada Soomaalida meeshan shan toban laha la dhahaa dadka isku yimaado dhalinyarada marka hal mar waxa idin tusiinaynaa shan toban laha say u eg tahay bal kaameramanka hal mar kaamirada kala wareegaya marka asxaabay shan toban laha aad maqlaysiin waa meel iska sidaa ah waa meel sidaa ah biyaheeda waa sida aragtiin biyaha waa iska wasaq sida arkaysiin odayaashooda waa odayaal iska nolol xun ku nool Soomaan nolol adag ku jiraan dharkaas meeshaas lagu gadgadaayo waa dharkii Soomaalida oo tahriibay guryaha laga baxshay dharkaasay nolol ka raadinayaan marka dad sidaa ah cunsuri waayo cunsuri maahan in lagu murmo ilama ahan baatiyada Soomaalida gabdhaha Soomaalida waa kuwa meeshaas ku warwaran guryaha laga soo ceersaday guryaha laga soo ciiray laga soo bixiyo marka gabdhaha saddex maxaa u dambeeyay guryaha hadii laga soo ceersaday waa banaanka inay homeless noqdaan oo badan tahay sanadkan soo socda saan ay ku soo socotay in dadka dhan wada homeless noqdaan oo darbijiif noqdaan guryaha maxaa lagu soo ceersaday sabab lacag badan la weydiisay guriga marka horeysa marka guriga marka hore akriisatid waxa lagu keenayaa adiga sabab amal aad dib aad luusinaya sanadka marka bish ku waday bish laad ka akriisatid saddexaad intaan la gaarin maxaa waaye lacagta am guriga wuxuu ku leeyahay $500 ama $500 ku dhaw guriga ku deg ama adiga marka guriga $150 ama $100 amal ku degneedo kale marka waxyaalahaas iska jiraan hadda aniga kala taga soo qaad guriga aan degnaa waa saa la dhaha guriga lacag intaas $100 dhiib adiga guriga yahay guriga waa iska dib badan tahay Soomaalida waxa dadkan Turkiga fiican oo maleeyeen walaadina meesha lagu soo dhaweysteen safaaradda nolol buuxday fiisay soo bixisa dadka insaan u soo tarxiilayaan weyn u soo bahdilayaan hadda 200 qof oo 200 qof meesha ku nool Soomaalida hadda xabsiyada ku nool isku joogaan wallahi nafta ka sii wada dhicisa ayagana baaba ah oo waxba aan haysan jiro oo nolol maanta meeshan ku haysanin ruutu muuqaal li biyo caadi ku siinay 24/7 qof magaalada iska dhex socdo oo sharcigiisa haysto inta la kaxeeyo meel halka la geeyayo oo la isku xiraayo iska baxaa leeyahay ka bax iska xiraa 3 saacadood oo soo lugeena ama 150 200 oo taxi la soo gelinay marka wallahi Turkiga aniga sida umaleeyeen ma ahan waa ugu xumaadeen shalay walaalaha Turkiga dhigi jirna laakiin maanta waa waraawayaasha Turkiga leenahay marka waraawe nagu noqdeen dad xun oo bahal galeen waa meesha leenahay marka dawladeena waxaan ka codsanaynaa inay wadanka noo fidiso horumar fiican iyo mustaqbal fiican dadkan dhibaataysan oo horumarka raadinayna in laga leexo safaaradda ay ka leexato isku dayayna insha Allah dawladda idmo safaaradda hanaga leexato 100% safaaradda masaakiintan oo xabsiyada marka imaadaan dadka ku saxiixayaan wadanka ee u tarxiilayaan inay joojiyaan isku dayayna marka maadaama hadda maanta dhalinyarta meeshaan Izmir oo joogto gudoomiyaha u ahay marka waxaan isku dayayaa inay safaaradda naga leexato isku dayaan dadkan horumarka raadinayaan inay kala ana waxaan leeyahay hal safar galay maxay ahayd toole ugu horeyn dib kasta aan marno ciidamada wadankan ee jandarma horta marka ugu horeysa wayna caawiyaan oo badda way naga soo badbaadiyaan tan labaad xabsi bay nageeyaan xabsiga markii la geeyo anaga jinsiyadii waan ingirnaa oo aan ka soo jeedno sabab jirta awgeed in la celinayo lacag aan naga soo baxday juhdi baa naga soo baxay biisa ayaa alla nafta ku soo helnay 3,000 iyo dhadho iyo wax kala jira nagala qaataa maxaa la dhihi jiray markaan intuu mid safaaradda fadhiyo Soomaaliya dadkii aan wadankan qabsadeen oo jinsiyadda cadeen markay nagu waayaan ayna meesha ka soo jeednaan jirno oo meel kale aysan celinaynin dadkooda in la celiyo diideen markaan ku dhuumaylaysano safaaradda Soomaaliya way imaanaysaa waxay leedahay
oo ma sheegtid oo inkiraysaa assalaamu calaykum abaa horta ugu horreyn waa lagu gaadaya waxaa lagu leeyahay assalaamu calaykum abaa ii warasee tahay haddii aad xog ogaal u tahayna waxaa lagu leeyahay maxaa ii inkiraysaa waaba tahay ku jeedaa waa caddee maxaa ka galay ani waan inkiray dalka anaa ka soo baxay ana u jeedo anaa maxaa la dhihi jiray ku noolaan qaraxa iyo rafaadka iyo dhibaatada ka jirto anaa lacagteeda ku yimaaday jinsiyadaha kale in la celiyo dadkooda diideen yacni yaa oo laga ogolaaday aan ku dhuumaalaysanay way inoo leeyihiin dalkii ay imaanayna wayna soo saari waayeen in jinsiyad aanahna way keeni waayeen sababtoo annaga farsamo aan samayna liajligeeda safaaradda soomaaliya hana nabadgeliso wax noo qabata ma lahan keliya inay annagana gaajuusto ay waddanka ay imaanay ee dana aan rabna inaan ka fulisano jinsiyada badana ka tahriibto soo dadka qaar elatariya ku hoos dhuntaan qaar yamantii ku hoos dhuntaan aniga keliya waddanka wuxuu sameeyaa faruu qaadaa qofka farahaas iqaamo iyo waxaa qofkii leh oo faraha ku soo baxaan asagaa ogaaday ilaa baasaboor ku samayso wixii oo wuxuu soo boodaa laakiin adiga waxa samaysanaysaa waddanka oga imaatay waxa isku dayda inaad dalka dan ka sii baxdo oo daniya u imaata samaysato marka waxaa laga yaabaa inaad dhex lagaa soo qabto ama cilad ku doonti kaa baqdo ama cilad ku qabsato safaaradda Soomaaliya xabsigay kugu imaanaysaa in lagu sii darajeynaysaa jinsiyadaada waa ka dhuumatay cadeen lagugu mahay ayada maxay iga shafaysaa maxaa ka haystaa lacag ma iga soo bixisay meesha ma war iga haysaa dhibteeda ma ogtahay ka codsanaya madaxweyne xashik maxamed wuxuu sheegay safaaradda Soomaaliya u fadhido Turkiga hana nabadgeliso dhibaato aad weyn bay nagu haysaa wax nooma qabato kaliya waxay lacag ku qaadataa inay annaga na jaajuusto ay safaaradaha timaato si lacag u hesho ay tiraahdo annaga qoomiyadaha kale in la tarxiil way diideen dadkooda xidhan dadkayga hadday bixin lama soo celin karo annaga dadkeeni haddii aan xataa ka dhuumanay way inoo jaaj safaaradda Soomaaliya noo jaajuusaysaa hana nabadgeliso bismillaahi raxmaani raxiim safaaradda midda kaliya ku qasaarno waa ayada marka waxay tahay waa la wada ogaaday marka inay dhalinyarada iyo wixii horumarka raadinaya inay ka leexato u baahannahay dadka nolosha raadsanaya inay ka leexato u baahannahay midda keliya oo ku qasaarno waa safaaraddaba midda keliya oo ku qasaarno waa intaas kaliya